بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaynu ku soo jirnay kitaabkii minhaaju daalibiin ee uu qoray imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi. qismu lmucaamalaat ayaan ku soo jirnay. kitaabu rahan ayaan maanta bilaabaynaa. kitaabu rahni, rahanta kitaabkeedii. marka rahan maxaa la yidhaah? huwa luqatan athubuutu, rahan waxaa la yidhaah wax sugan. wa minhu waxaaba ka mid a in sidaa la yidhaah xagga luqadda alxaalatu raahina, marka la leeyahay xaaladda hadda joogta. ama waxaa la yidhaah xagga luqada rahanta alxabsu, waxaa ka mid a alkhabaru saxiix, xadiidkii saxiixa ahaa ee nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam: nafsulmu'mini marhuunatun bidaynihi xataa yuqdaa canhu. mu'minka naftiisa marhuunatun waa la xabisay oo waa la xidhay, maqaamkeedii wanaagsanaa baa laga xidhay, bidaynihi bisababi daynihi, deyntii lagu lahaa sababteed, xataa yuqdaa canhu daynuhu, ilaa deyntiisa laga gudo. laakiin waa wixii ambiyada aan ahayn. amaa nabiyada iyagu kuma jiraan oo deyn loo xabaasi maayo wey. xagga isdilaaxa fiqiga rahan waxaa lagu yidhaah jacalu cayni maalin wathiiqatan bidaynin yustawfaa minha cinda tacaduri wafaa'ihi. jacalu cayni maalin, maal cayntii oo laga dhigo, wathiiqatan kalsooni, bidaynin deyn looga dhigo, yustawfaa minhu deynka oo laga bixin doono, minhaa caynta laga bixin, cinda tacaduri wafaa'ihi, markii in la bixiya ay suurtagal noqon weydo. xagga isdilaaxa fiqigana saasaa lagu yidhaah. rahanta de innaga af soomaaligana rahanun baa dhahnaa. xagga asalka waxaa asal u ah qabla alijmaac, intayna culimada islaamku ku ijmaaceen rahantu inay wax sugan tahay. aayaddii qur-aanka ahayd suuratu baqara 283 aayadda ilaahay uu yidhi farihaanun maqbuuda ilaahay uu yidhi, oo macnaheedu ay tahay farhanuu wa aqbiduu, ilen waa masdare. farihaanun maqbuuda bimacnaa farhanuu rahan dhiga, wa aqbiduu oo guddoonsiiya waxa aad rahan dhigaysaan markaad wax kala daynsanaysaan. iyo nabiga oo calayhi salaatu wasalaam diric uu lahaa nin abishaxam lo odhan jiray oo yahuudiya rahan ahaan u siiyey, kabacdina ka qaatay 30 saac. saacu waa weel wax lagu miiso. 30 saac oo heed ah ehelkiisa uga qaatay. xadiidkana bukhaari iyo muslim baa wariyey. xadiidka iyo aayadaaba waa u asal. haddaba haddii la yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo madiine jooga muxuu yahuudi wax uga amaahday oo rahan u dhigay oo mu'miniinta kale uu uga amaahan waayo? waxay culimmadu kaga jawaabeen, wuxuu caddaynayay ahlu kitaabka in lala mucaamaloodo inay bannaan tahay. qolena waxay yidhaahdeen waxaa suurtagala mu'miniinta kuwoodii wax haystay markaa cunto oo ka dheeraada inayna haysanin, oo xaajadooda ka dheeraada ayaa dhici karta. qaarna saasay kaga jawaabeen. haddaba waxyaalaha oo deynka wathiiqada looga dhigo, kalsoonida looga dhigo, ama xuquuqdaba markii laysku soo duubo, xuquuqda 3 weeyaan: shahaadatun wa rahanun wa damaanun. makhraati, marka deyn lakala qaadanayo makhraati in loo sameeyo. rahan in deynka waxaan sii haysta isii la yidhaah, oon rahan u haysto, oo hadhow haddaa deynka bixin weyda aan inta la iibiyo deynkii laga bixiyo. iyo damaan, deynkii qof ii damaanayaan doonayaa, hadhow waa intaasood bixin kari weyde. marka shahaada wa rahnun wa damaanu, 3daaba waxyaalaha kalsoonida ahee deynka loo sameeyo ayay ka mid yihiin oo qofku uu dalban karayo. haddaba midka hore oo makhraatiga ah, waxaa ujeeddada laga leeyahay waxa weeye qofkani waxaan hadduu inkira hadhow oo uu yidhaahdo wax deynaba maana kaa qaadanin, taas ayaa sababteed loo sameeyaa, yacnaa diidda ka baqashadeed. labada kale oo rahanta iyo damaanka, iyaga waxaa loo sameeyaa likhowfi iflaas, qofkan inuu caydhoobo oo uu iska bixin kari waayo deyntii
cabsi laga baqanayo ayaa loo sameeya. kitaabkan haddaba aan gelaynay kitaabu rahan arkaan buu leeyahay. arkaantiisa waxaa ka mid a caaqid, marhuun, marhuunu bihi iyo siiqo. caaqid marka la yidhaha kii wax guntayey ee heshiiska sameynayey, markaa raahin iyo murtahin labadaasu ka kooban yahay. raahin waa midka rahanta dhigaya, murtahinna waa midka rahanta qaadanaya deynta laga qaata. marhuun waa shayga oo la dhigaya weeye naftiisa. marhuunu bihi shayga sababtii rahanta loo dhigayo deynka ah, iyo siiqadii ayuu ka kooban yahay, ee arkaantiisu ay ka kooban tahay. marka sheekhu siiqadii ayuu ka bilaabay, wuxuuna yidhi matniga eega minhaajka: laa yasixu rahantii ma asaxayso ilaa biiijaabin, iijaab iyo wa qabuulin aqbalid mooyeen. iijaabka iyo qabuulku waa kuwii beeca aan kusoo barannay, waan ku rahan dhigay iyo waan rahan qaatay, saasoo kale yani rahantuka iyo irtahantu afka carabi. maxaa yeeloo qabuul iyo iijaab loo shardiyey? liannahu caqdun maaliyun, waa heshiis oo maal ah. faftaqara ilayhimaa, markaa wuxuu u baahday wax rilla ku tusiya raalli noqosho oo siiqadii ah ayaa loo baahday, sida beeca oo kaleba loogu baahday. fa in shurida haddii la shardiyo fiihi rahanta dhexdeeda muqtadaahu caqdigu wuxuu keenayo, ka taqadumi lmurtahini kii wax rahan qaatay ku horumarintiisaba weeye, bihi bilmarhuuni lagu hormariyo markii oo quramadu ay isciriiriyaan. ow maslaxatun haddii la shardiyo wax maslaxo ah lilcaqdi u ah, kal ishhaadi makhraatigelin shaygii marhuunu bihiga ahaa la makhraatigeliyaba weeye. ow maa laa qarada wax muraada fiihi dhexdiisa ayna ku sugnayn haddii la shardiyo saxal caqdu, caqdigii wuu asaxayaa saddexdaa masalaba. shardigan dambana waa la yska laaqiyeelayaa oo waa la yska tuurayaa. waxaa la shardiyey markii rahantii la sameynayay, midkood baa shardiyey, kii kalena wuu ku waafaqay wax caqdiguba uu keenayo. oo maa maxay? ka taqadumi lmurtahini, wuxuu yidhi niyahow waxaan ku rahan dhigay xoolahan bishardi haddii aan caydhoobo in adiga lagugu hormariyo shaygan isagaa adiga lagu gado oo dadka kale deynta igu leh adiga lagaa hormariyo. taqadumi lmurtahini bihi bilmarhuun, saas buu dee sidaa caqdigaaba keenaya. ama waxaa la shardiyey wax caqdiga maslaxa u ah. oo maa maxay? wuxuu yidhi shaygan baan ku rahan dhigay bishardi inaan makhraati aan u yeelo shayga deynta ah, shayga deynka ah marhuunu bihiga, shayga sababtii wax loo rahan dhigayaa inaynu makhraati aynu u samayno, ama rahanta nafteeda shaygan rahanta ah inaynu makhraati aynu u samayno ayaan shardi ka dhigay oo ayaan kuu rahan dhigayaa. ama wuxuu yidhi wax muraadoo ku suganba uusan jirin ayuu shardiyo, wuxuu yidhi niyahow shayga maan yaan ku rahan dhigay, kasoo qaad waagii addoommaha ay jireen oo kale, addoonka maan ku rahan dhigay bishardi baasta mooyeen wax kale inuuna cunin, oo waxaa mooyeen yani wax kale inuuna cunin. taasoo kale dee wax danoo ku sugan ma jirto, wax qiimo ay leedahay male. saddexdaa masalaba saxal caqdu, caqdigu wuu asaxayaa sidii beecuga uu asixi jiray. shardigan ugu dambeeyana waa layska laaqiyeelayaa oo waa layska tuuraya. wa in shurida haddii la shardiyo maa shay yaduru dhibaya almurtahina qofka rahanta qaadanaya ee deynku ka maqan yahay. murtahin taa ku dheefla la yidhaahdayo, waa midka deynka qaadanaya, waa midka oo rahanta qaadanaya ee deyntu ay ka maqan tahay. haddaba waa in shurida haddii la shardiya markii caqdiga rahanka la samaynayo maa shay yaduru dhibaya almurtahina ka rahanta qaadanaya, midka oo raahinka ana anfacaya meesha ku jirta. badala shardigaasi badala wuu burayaa, arrahanu rahantii way buraysaa, shardiguna wuu burayaa, labadaba way isla burayaan. badala rahanu rahantii way buraysaa, maxaa yeelay waa limunaafaatihi, shardigaas baa wuxuu kasoo horjeedaa limaqsuudihi, ujeedadii rahanta laga lahaa. tanna waa sidee? waxaa la shardiyey wax murtahinka dhimaya. tusaale ahaan waxaa lay niyahow shaygan baan ku rahan dhigay bishardi marka deynka waqtigiisii la gaadha inaadan iibinin,
taa dee dhib bay ku tahay. ama wuxuu niyow shaygan baan ku rahan dhigay bishardi haddii oo daynkii la bixin waayo lacagtiisa wax ka fara badan mooyeen wax kale qiimihiisa wax ka dheeraada mooyeen inaadan wax kale ku gadin. haddee qiimihiisa wax ka dheeraada ayaa ku gadanaya, taana waxay dhib ku tahay ninka murtahinka ah ee rahanta qaatay ee dayntu ka maqantay. marka sidaas oo kale haddii la shardiyo waxa weeye rahanta iyada way buraysaa. rahanta shardigaa la shardiyey way buraysaa, waxay ka hor imanaysaa ujeedadii laga lahaa oo in shaygan inta la iibiyo markii deynka la bixin waayo qiimihii markaa jooga inta lagu gado in deynka laga bixiyadii, taas ayuu ka hor imanaya. bal hadda eeg, waa in shurida haddii la shardiyo caqdiga rahanka dhexdiisa maa shay yaduru dhibaya almurtahina kan rahanta qaadanaya oo midka raahinka ana anfacaya, badala rahankii badala rahanu rahantii way buraysaa. maxaa yeelay waa limunaafaatihi, wuxuu ka hor imanayaa limaqsuudihi, ujeedadii laga lahaa rahanta ayuu ka hor imanaya. wa in nafaca haddaba shardigii hadduu anfacayo almurtahina kan rahanta qaatay hadduu anfacayo oo wadara uu dhibaya alraahina kii rahanta dhigay ee deynta qaatayna uu dhibayo, wadaalika ka shardi manfacatihi manfacati lmarhuun, marhuunta manfacadeedii oo la shardiyeega weeye, lilmurtahini kii rahanta qaatay loo shardiyee badala shardu, horta shardigaasi wuu burayaa khilaaf la-aan. wakada rahanu rahantuna way buraysaa fil adhari qawi haddii aan qaban. masaladanna waa side waxaa la shardiyey wax oo murtahinka anfacaya, qofka rahanta qaatay wax anfacaya, raahinkana kii rahanta dhigayna dhibaya ayaa maaragtay ayaa la shardiyay. oo maxaa ka mid ah ka shardi manfacatihi lilmurtahin. shayga laysrahan dhigayo waa shay manfaca leh, nacfi buu leeyahay. matalan kasoo qaada waa guri oo kale, markaa guriga nacfigiisana waxaa ka mid ah in la dego oo la deganaado ayaa ka mid a. waxaa la niyahow guriga maan ku rahan dhigay bishardi niyahow gurigan i rahan dhig bishardi nacfigiisana intaa uu rahanta ii yaallo inaan anigu iska lahaado. marka badala shard, shardigaasi wuu buraya. maxaa yeelay dee ninka raahinka ayuu dhibayaa. midda kale xadiidka nabiga wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam, kullu shardin laysa fii kitaabillahi tacaala fa huwa baatilun. shardi kasta oo ilaahay kitaabkiisa aan ku oolin, maxaa loo jeedaa qawaacidda sharciga ka hor imanaya. ilaan shuruuddu kitaabka qura lagama qaatee xadiidka nabiga iyo ijmaac iyo meelo badan baa laga qaatay. waxay ka mid culimmadu ku fasireen xadiidkan kullu shardin laysa shardi kasta oo shareecada khilaafsan fa huwa baatilun. saas yani ayay ku awool. marka rahantiina iyaduna way buraysaa. maxaa yeelay shardiga ayaa wuxuu khilaafsan yahay wixii caqdigu uu keenayay. oo shaygan oo marhuunta ah dee nacfigeeda waxaa iskale raahinka ayaa iskale, nafaqadeedana isagaa lagu leeyahay, waa inoo iman doontahay. marka dee waxaa taa ka duwan baa la shardiyey. marka kol haddii shardigaas faasidkaa uu yimid, rahantiina iyaduna way fasaadaysaa bay ka dhiganta. wa in nafaca shardigii hadduu wax u tarayo almurtahina ka rahanta qaatay ayuu wax u tarayaa, oo wadara uu dhibayo alraahina ka rahanta dhigay ee deynka qaatay uu dhibayo, wadaalika ka shardi manfacatihi shaygaa rahanta ah nacfigiisoo la shardiyaba weeye, lilmurtahini kii rahanta qaatay loo shardiyee badala shardu, shardigaasi wuu burayaa khilaaf la-aan. maxaa yeelay xadiidkiibuu ka hor yimid. wakada rahanu rahantuna way buraysaa fil adhari qawi haddii aan qabno. maxaa yeelay waa limukhaalafati shardi muqtada alcaqdi, shardiga ayaa wuxuu ka hor imanayaa oo khilaafsan yahay wixii caqdiga rahanta uu keenayay. oo shayga marhuunta ah manfacadeeda ninka raahinka ah ee mulkiilaha ah kaas ayaa iskale, waa inoo soo socotahay. marka taas ayuu ka hor imanaya. walow shurida haddii la shardiyo an taxduha inay timaado zawaa'iduhu shaygan marhuunta ah waxyaalihiisa dheeraadka ah ee nacfiga ah, marhuunatan xaalo ay tahay tii rahan ah inay timaado haddii la shardiyo, faladharu sida qawiga fasaadu shardi, shardigaasi horta waa faasid. wa annahu waladharu sida qawiga annahu shaniye mataa fasada shardigu markuu fasaadana, mataa fasada markuu shardigu fasaadana
fasada alcaqdu caqdigii rahantuna wuu fasaadayaa isaga fasaadidiisa darteed ayuu u fasaadayaa. tanna waa sidee? waxaa la shardiyey shayga marhuunta ah. hadda la socdo had iyo jeer, marhuun waa shayga rahantee la dhigayo, marhuunu bihi waa shayga deynka ah, raahin waa ninka rahanta dhigee deynta qaatay, murtahin waa ninka deynta laga qaatay rahantana qaadanaya taa ku dheeflaha ah. marka sidaa kelmadaha inaad xusuusataan waa muhim wey. marka maxaa la shardiyey? shaygii marhuunta ahaa zawaa'id bay leedahay, jamcu zaa'idin weye. zawaa'id waxaa weeyaan ziyaadaduu leeyahay, waxyaalaha isaga ka imanaya. marka ziyaadada laba loo qeey, ziyaada munfasila iyo ziyaada mutasila ah. ziyaada oo munfasilo oo ka soocmaysa waxa weeye shaygii rahanta ahaa kasoo qaad xooluu ahaa, ilmaha uu dhalayo, midna kasoo qaad geed buu ahaa, midhaha uu bixinayo, waxaa la yidhaha ziyaado oo munfasila ah oo ka soocan. ziyaado oo mutasilo oo marhuuntu ay leedahayna shaygii marhuunta ahaabaa cayilay, cayilkaasoo kale waa ziyaado oo mutasila oo la xidhiidhoon ka foqaynin, ama qiimihiisiibaa kordhay, waa ziyaado oo mutasila. haddaba intaa haddaad ogaatay, haddii marka caqdiga la samaynaya la shardiyo shaygan marhuunta ah wixii ziyaado oo ka yimaada in iyada oo rahana ay timaado, oo ilmaha soo dhalanaya isagoo rahana uu soo dhasho isagana meesha la dhigo, midhaha geedka uu bixinayo iyaguna ay rahan noqdaan, saasoo kale haddii la shardiyo shardigaasi horta faasid buu noqonaya. maxaa yeelay wax macduumoon jirin oo haddana jaahil laga yahay ayaa waxaa la shardiyey inuu rahan noqdo. shayga de waxaan hadda joogin oo ilmaha dhalan doono iyo midhaha geedka uu bixin doono waa macduum, waxaan jirin, waana majhuul, wax laga jaahil yahay. saa darteed shardigaasi horta waa faasid isagu. shardigaasi hadduu faasid noqdayna caqdigii rahanta ee isaga la shardiyeyna faasid buu noqonaya. walow shurida haddii la shardiyo an taxdutha inay timaada zawaa'iduhu shaygan rahanta ah ziyaadooyinkiisa, waxyaalaha isaga ka imanaya nacfiga ah, marhuunatan xaalo ay tahay iyadoo rahana inay timaado haddii saa la shardiyo, faladharu sida qawiga ah fasaadu shardi, shardigaa faasid inuu yahay wey. maxaa yeelay waa licadamiha shayga ziyaadada ah waxaan jirin weeye, maca aljahli bihaa, haddana jaahil baa laga yahay, labadaasa isku darsatay, waa majhuul waana macduum. wa annahu mataa fasada, waladharu sida qawiga annahu mataa fasada, markuu fasaado shardigii, fasada alcaqdu caqdiguna wuu fasaadayaa, caqdigii rahantu. maxaa yeelay waa lifasaadi shardi, shardigii kol hadduu faasid noqday caqdigaasina wuu fasaadayaa wey. meesha maxaan kaga soo baxnay allahuma salli calaa muxamed siiqadii oo ruknigii ugu horeeyey, qabuulkii iyo ijaabkii waan rahantu ka iyo irtahantu, shaygan baan ku rahan dhigay iyo waan aqbalay, ayaan halkaa kaga soo baxnay. qofkii marka caqdiga samaynaya caaqidkii ayaan halkana ka gelaynaa, arkaanta sidaa ula socda. marka caaqid marka la yidhaah baabkan waa raahin iyo murtahin. raahin oo ninkii rahanta dhigay deynta qaatay, iyo murtahin ninka deynta laga qaatay ee rahanta qaadanaya, sidaa ula socda. wa shardul caaqidi, qofka oo heshiiska samaynaya, heshiiska rahanta samaynaya, shardigiisu kownuhu ahaanshihiisa weeye mudlaqa tasarufi, mucaamaladiisu tasarufkiisu bimacnaa inuu waxgado inuu wax iibiyo, tasarufkiisu miduu sii daysan yahay waa inuu yahay. kownuhu ahaanshihiisaa la shardiyaa mudlaqa tasarufi, yani tasarufkiisu, mucaamaladiisu nin ay fasaxan tahay xagga sharciga, mudlaq nin la fasaxay oo maxjuuru calayhi aan ahayn waa inuu yahay. maxaa yeelay caqdigani waa caqdi liannahu caqdun maaliyun, waa caqdi oo maal ah. marka hadduu caqdi oo maalo yahay, shaygu qofka samaynaya waa inuu yahay shay oo nin oo mudlaqu tasaruf, tasarufkiisa nin la sii daayo oo la fasaxay, xagga sharciga laga fasaxay, maxjuuru calayhi aan ahayn, mid oo la sharay oo tasarufka laga sharay sida ilmihii yaraa iyo kuwa inoo soo socda, waa inuun ahayn. waxaa kaloo shardi labaada al ikhtiyaar, inaan la dirqiyeynin labada nin midkoodna, inaan la dirqiyeyninna waa shardi kale wey. falaa yarhanu ma rahan dhigo alwaliyu weligii maala sabiyi, sabiga xoolihiisa, iyo walmajnuuni wa maalalmajnuuni, majnuunka xoolahoodii inuu rahan dhigo ma bannaano. walaa yartahinu rahanna uma qaado lahumaa labadooda ilaa lidaruuratin, dhibaato adag inay jirto, ow khibdatin ama dheef
daahiratin oo muuqata oo layska wada arka labadaa inay midun jirta mooye. waxaynu nidhi ninka caaqidka ah murtahin iyo raahin midkuu doonaba ha noqdee waa inuu yahay mutlaqu tasaruf, ninoo mucaamaladiisu ay asaxayso. haddaynu saa nidhi ninka weliga ah sabiga weliga waa ama aabihii ha noqdo ama awowgii ha noqdo ama wax kale ha noqdee ama majnuunka weliga u ah ee sharcigu weliga uga dhigay, ma bannaano xoolihiisa falaa yarhanu ma rahan dhigo weligu xoolihiisa oo intuu dayn u qaado ilmihii xoolihiisi inuu rahan u dhigo, majnuunkii intuu dayn u soo qaado xoolihiisi inuu rahan u dhigo, taa iyada ma asaxayso. xagga u bood ilaa lidaruuratin ow qibdatin, inay daruuro jirta mooyeen xoolaha ilmaha rahan in loo dhiga lama ogolo. maxaa yeelay haddaad rahan dhigto xoolihiisii ayaad xabaastay oo tasarufkii ka xidhay min gayri ciwadin, adoo wax bedeloo qaadatayna uusan jirin. ilaan shayga rahanta ah laguma tasarufi karo ilaa deynka laga gudo. marka xoolihii ood meeshii dhigtood xidhay, ilmaha tasarufkiisii aad ka xidhay, aad ku tasarufi lahayd ayaa meesha ka imanaysa. taasina daruuro inay timaado mooyeen si kale uma bannaan. daruuradii marka maxaa ka mid ah? daruuradii waxaa ka mid ah allahuma salli calaa maxamed, baahi baa jirta. ilmihii ama majnuunkii way baahan yihiin, inaad dayn u qaado xoolahoodiina u rahan dhigto haddii daruura ay jirto, oo baahina way jirtaa. maalan guri kira ah oo kiradiisii ay soo socoto, wax yar ka hadhay baa jira maalan, ama wax kaloo dheef ay kasoo gelayso soo socdoo la hubo oo waqti ku xidhan baa jira. maalan dayn ka maqnaa oo waqtigiisii uu dhow yahay ayaa jira, oo daynkaasina si sharciga uu kaga maqnaa. maalan waxaa jira badeeco ilmahan yarka ah ama majnuunku uu lahaa oo markii hore bixi weyday ayaa la rajaynayaa si dhaqsaa inay u baxdo. markaasoo kale waa daruuro haddii badeecada iyo la sugayo in dayn inta loo qaado rahan loo dhigo, maxaa yeeley markaa daruura ayaa ugu jirta. ow khibdatin daahiratin, ama dheef oo muuqato cad baa ku jirto, shay ayaa maaragtay wuxuu joogaa oo dayn aad ku qaadaysaa, oo shay baa dayn ku qaadaysaa 100 jooga. haddii aadan dayn ku qaadinna oo rahan aadan u dhigina aad hadda iibsanaysana 200 buu joogaa. oo say ku dhici kartaa? waxay ku dhici kartaa meesha ayaa meel dagaal ka socdaa, nin walba xoolihiisii in laga dhaco ayuu ka baqayaa. marka ninka xoolihiisii hadda laga qaata ee muddo kabacdi loo soo celinayo oo rahanna sii haysanaya, rahantaasina ay tahay mid aan iyada looga baqaynin dhibaatadan oo nooc gaara ah, sidaasoo kalea lagu suuraysanaya. marka shay haddii hadda la iibsanaya 200 jooga, haddii dayn lagu qaadanayana waxaan ujeeda haddii hadda la iibsanayo 100 jooga, haddii dayn lagu qaadanayana 200 jooga, oo ninka hayaay uu doonayo inaan hadda lacagta la siinin dayn lagaga qaato oo dagaaladan iyo waxan iyo uu uga badbaado. qofkana qof isagu badbaadin kara markaa uu yahay, saasoo kalea lagu suuraysan karaa. oo khibdatin daahiratin, markaasoo kale intuu daynta u qaado inuu rahan u dhigo, taana iyadana way asaxaysaa. walaa yartahinu lahumaa, taa waa haddii rahantii la dhigayo. walaa yartahinu uma rahan qaado ninkii weliga ahaa sabigii iyo majnuunkii, lahumaa labadooda rahan uma qaado. maxaa yeelay ilaa lidaruuratin mooyeen. xaalatu ikhtiyaarka dee sideedaba waxa weeye xaalo mooyeen ajal inuu xoolihiisa ku gado lama ogolo. ilmaha yar xoolihiisa ajal in lagu gado, inuu xaalo lagu gado weliba la guddoomo, markaa lacagtii meesha uu ku guddoomo mooyaan. ilaa lidaruuratin iyadana dheh rahan, oo daruuradii maxaa ka mid ah? xoolihiisii ayuu maaragtay ayuu iibiyo, dayn buu ku iibiyey. xoolihiisii ayuu ku iibiyey. allahuma salli. walaa yartahinu lahumaa, rahan uma qaado. waxaa jooga maalan tii un ku noqo, waa meel laisboobayo dagaal baa ka socda, markaasuu xoolihiisii wuxuu u bixiyey dayn, oo wuxuu yidhi niyahow sanad ka bacdi ama 6 bilood ka bacdi ama 2 bilood ka bacdi inuu is leeyahay intaa dagaaladan iyo waxay qaboobayaan in laga dhucu ka baaqay oo laga biliqaysto. marka saasuu xoolihii sabiga ayuu dayn ku bixiyey, rahanna wuu u qaaday. rahantaasoo iyada ayna saameyneynin dagaalka oo nooc gaara. taasoo kale maslaxa ayaa ugu jirta in rahan loo qaado xoolihiisiina dayn lagu bixiyo ayaa keenaysa.
allahuma salli calaa maxamed iyo wixii lamida. eeg haddaba wa shardulcaaqidi, caaqidka shardigiisu qofka uu heshiiska samaynaya kownuu ahaanshihiisa weeye mudlaqa tasarufi, tasarufkiisu miduu fasaxan yahay xagga sharciga waa inuu yahay. falaa yarhanu, rahan ma dhigo alweliyu weligii maala sabiyi, ilmihii yaraa xoolihiisa rahan uma dhigo. walmajnuuni wa maalalmajnuuni, kii waalaa xoolihiisana rahan uma dhigo. walaa yartahinu, rahanna uma qaado lahumaa labadooda ilaa lidaruuratin, dhibaata inay jirta mooyeen, ow qibdatin, dheef daahiratin oo muuqata in meesha ay taalla mooyeen. wa shardu rahni, meeshana waxaan ka galaynaa shaygii caynta ahaa ee rahanta loo qaadanayay ayaan shuruudeedii ka galaynaa. wa shardurahni, shardulmarhuuni bay ka dhigan tahay. wa shardurahni wa shardulmarhuuni, shayga la rahan dhigaya shardigiisu kownuhu ahaanshihiisa weeye caynan cayn uu yahay, fil asaxi qawi haddii aan qaban. cayn maxaa laga wadaa? waxaan manfaco ahayn. matalan guri la kireeyey waa manfaco, kiradaasi waa manfaco. oo matalan gurigan manfacadiisaan ku rahan dhigay, gurigan inaad bil ku jirto ayaan ku rahan dhigay, saasoo kale. taasoo kale ma ansaxayso, maxaa yeele waa manfaco. oo dee ilan manfacadii waa wax dhammaanayso oo markuu habeen lagu jira habeenkaasi waa tegay, marka taasi ma ansaxayso. meeshana waxaa la rabaa wax deynka markii la bixin waayo inta la iibiyo deynkii lagu bixiya ayaa la doonayaa. saa darteed manfacadu iyadu ma noqonayso. ama waxaan ku rahan dhigay suuratulbaqara inaad barto, taasoo kale rahan ma noqonayso. ee waa inuu yahay wax cayn ah oo hadhow la iibin karayo. oo markaa rahantii waxaan ansaxaynin manfacadii, taasi ma ansaxayso wey. wayasixu waxaa asixi rahanulmushaaci, shaygii oo shirkada lagu ahaa mushaac, kii oo milkigiisu uu faafsanaa. mushaac waxaa la yidhaah matalan laba nin baa wax isku leh, guri bay isku leeyihiin umana qaybsano. matalan midkood wuxuu leeyahay guriga 3 meelood labuu leeyahay, midna meel buu leeyahay, laakiin uma kala qaybsano. waxaa la yidhaha milki oo mushaac ah. mushaac yacni waa wax faafsano, taakadii la arko oo guriga ka mida, dhagaxii la arkaba way wada leeyihiin, waa milki oo mushaac ah, shirko oo mushaaca wey. marka shayga noocaas oo kale ah, waa shaygaa mushaaca ah rahan waa loo dhigi karaa. oo wuxuu odhan karaa guriga aniga hebel buu naga dhexeeyaa, 3 meelood meel ayaan anigu leeyahay, meeshaasaan ku rahan dhigay, kana waan aqbalay buu odhanaya. sida uu ku guddoomayana waa inuu guriga kulligii wada guddoomo oo markaa sidaa uu u hayo. waa hadduu raalli ku noqdo ninkii kale shariigga ahaa. hadduu raalli ku noqon waayo, laakiin kan rahanta qaatee murtahinka ah raalli uu ku noqdo inuu shariigga gacantiisa guriga ku jiro, iyadana way iska noqon kartaa. hadduu mid walba yidhaah maya anigaa gacanta ku haynaya, qaadiga ayaa loo dhiibaya. qaadiga ayaa nin caadila gurigii ayaa gacanta ku hay odhanaya. markaasaa deynkii markii la bixiyo arrintaasi meeshaa ku dhammaan. haddii la bixin waayana dee nasiibka uu lahaabaa la xaraashayaayo deynka ayaa lagu bixinaya. wayasixu dheh waxaa asixi rahnulmushaaci, shaygii mushaaca ahaa ee faafsanaa, milkigiisu labada nin shirko oo mushaaca ay ku ahaayeen, ayaa ansaxaysa in la rahan dhigo. ninka shariiga kula naftiisana waa la rahan dhigi karaa, qof kalena waa la rahan dhigi karaayo way bannaan tahay. sida beeciisuba u bannaanaa ayay rahantiisna ayay u bannaantay. wal ummi wa rahanul ummi, hooyo in la rahan dhiga ayaa bannaan duuna waladihaa, ilmaheeda aan la rahan dhigin. wa cagsuhu, dabagedigeeda arrintaasina way bannaan tahay. oo in ilmihii la rahan dhigo hooyadiina aan la rahan dhigin, taasina way asaxaysaa, laakiin beeceedu ma asixi jirin. marka hooyada uu ku leeyahay haddii addoon buu ka hadlayaa la soco. oo markuu sheekhu kitaabka qorayay addoommo ayaa joogay meesha ka buuxay, marka xukunkoodii ayuu ka hadlayaa. waxaa asaxaysa buu leeyahay addoon ilmo wadata in iyadii la rahan dhiga, laakiin ilmaheedii aan la rahan dhigin. ama bilcagsi la sameeyo ilmihii la rahan dhiga addoonkii yaraa, laakiin addoontii aan la rahan dhigin ayaa maaragtay ayaa asaxaysa buu sheekhu leeyahay. maxaa yeelay beecoodu laakiin ma asixi jirin in la kala geeyo, hadduuna markaa dee weynaaninoo uuna ka kaaftoomin oo usa ka goyn. maxaa yeelay halkan waa libaqaa'il milki fiihima falaa tafriiqa, dee ninkii unbaa labadoodiiba wada leh, oo wax tafriiqoo kala geyna ma jirto, maadaama milkigiisa labadiiba ay wada yihiin. waa rahantu ilan milkigii ma guurinaysee way xabaasaysaa una waan la gedi karin bikayri idni lmurtahin.
saa darteed tafriiq meeshii ma imanan. haddaba wa cinda alxaajati markii loo baahdo in deynkii la oofiyo oo shaygaa marhuunta ah addoontaas ama addoonkaa in laga oofiyo markii loo baahdo yubaacaani waa la gadayaa labadoodaba. haddii oo raahinku uu wada leeyahay labadoodaba waa la wada galayaa. haddii ilmahu uu ku jira da oo ay xaaraam tahay tafriiqii uu xaaraam yahay oo marka waa inuuna ka kaaftoomin weli. wayuwasacu waa la soori oo waa la qaybin athamanu lacagtii ayaa labadooda lagu soorayaa. lacagta ayaa labadooda deedna ayaa loo qaybin oo seebaa loogu soori waatan. wala saxu sida qawigaa annahu shaniya tuqawamu waa la qiimayn al ummu hooyadii waxdahaa kelideed baa la qiimayn hadday tahay waxa rahanta loo dhigay iyada kelideed baa la qiimayn. huma maca alwaladi iyadoo ilmaha wadata ayaa la qiimayn. fa zaa-idu inta dheeraadka ah qiimatuhaa iyada qiimaheedii weeye. hadana waxaa la odhanayaa marka la doonayo in la ogaado iyada qiimaheeda ilan in la kala gada ma banaane waxaa la odhanayaa labadoodaba horta waa laysla gadayaa. kasoo qaad labadoodiiba in laysla gaday oo 1,000 yuuro la siiyey. kasoo qaad marka 1,000 yuuro la siiyo ilan waxaa rahan ahayd hooyada keliya ayaa marhuun ahayd ee ilmuhu rahan ma ahayn. marka hooyada waxaa la doonayaa qaybteedii in la ogaado. see lagu ogaan karaa marka? iyadoo keligeeda ayaa la qiimayn. kasoo qaad iyadoo keligeeda inay noqoto 100. haddana iyadoo ilmahani uu la socdo ayaa la qiimeynayaa. kasoo qaad 150 inay noqoto. markaasaa deedna waxaa la odhanayaa markay keligeed ahayd qiimaheedii 100 buu noqday. iyadoo ilmaha la jirtana 150 buu noqday. inta dheeraadkaa maxay noqotay 50. markaa deedna isu nisbe 50 iyo 100 waa thuluth iyo thuluthaan. markaasaa deedna lacagtii la siiyey thamanta ahaa ee 1,000 ahayd ayaa waxaa la odhanayaa 3 meelood 2 waa hooyada qiimaheedii waa lacagteedii weeyaan. 3 meelood meelna waa ilmaha addoonka yarkaa qiimihiisii weeye. sidaasaa la odhanaya. haddii waxa rahanta loo dhigay ilmaha uu yahayna bilcagsi ayay noqonaysaa. marka faa'iidada ku jirta maxay tahay? ileen laba oo loo qiimeynayaa. ileen laba jeeraba deynkan in la bixiyo ninkan deynka inuu bixiyo wuu ku qasban yahay. labadana isagaa isla leh. maxay tahay marka inuu lacagtan ka bixiyo inuu lacag kale ka bixiyo isagu uu ku qasban yahay? qiimeyntan faa'iidada ku jirta maxay tahay? marka loo baahan hayase waa goorma? faa'iidada ku jirta waxay tahay markuu caydhoobo weeye oo deyntiisii iyo xoolihiisii deyntiisii ay badato oo maxjuuru caleyhi uu noqdo oo xoolihiisii oo dhan in la xaraasho ay noqoto oo dadkii deynta ku lahaa ay soo saftaan. markaas ayay faa'iidadu imanaysaayo markaasaa ninkani uu soo boodayaa murtahinka oo uu leeyahay aniga haddee shaygani rahantaydu ahaaye anaa laygu horumarinayaa dadka kale iyagu shaqo kuma leh. marka si loo ogaado marka in isagii loogu horumariyo markaasaa deedna qiimeyntani markaas ayay imanaysaa. haddayna taasi jirin looma baahna weeye dee laba jeeraba ila inuu bixiyo weye. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. warahanuljaani addoonkii dhibka geystay rahan dhigiisu iyo walmurtadi warahanulmurtadi addoonkii diinta ka baxay walciyaadu billah rahan dhigiisu ka baycihimaa iyaga iibintooda unbay la mid tahay. addoon dhib geystay oo nin waxyeello u geystay ama addoon diinta ka baxay ma la rahan dhigi karaa? inta dayn la qaata rahan ma loo dhigi karaa? waxay la mid tahay buuri sheekhu ka baycihimaa iyaga iibintooda. iibintoodana waan soo marnay oo waxaa inoo soo hormartay addoonka dhibaatada geystay haddii raqabadiisa uu maal ku tacalluqo oo isaga in loo iibiyo dhibkuu geystay ay tahay inuuna asaxaynin in la iibiyo inayna asaxaynin. laakiin addoonku hadduu qisaas yahay waxaa lagu leeyahay inuu beeciisu asaxayo. ama haddii bidimmatihi xoolo oo dimadiisa ku tacalluqa ay jiraan oo markuu xoroobo kabacdi loo raacanayo waan bidimmatihi biraqabati waa inagii soo marnay. raqabadiisa waa wixii isaga loo iibinayo. bidimmatihina waa wixii loo raacanayo markuu xoroobo kabacdi. marka addoonku haddii bidimmatihi ay ku tacalluqaan xoolo oo xoolo hadda aan loo raacanaynin markuu xoroobuun loo raacan ama qisaas uu ku waajibay oo jinaayadan labada mid unay keentay waxa weeyaan beeciisu wuu asaxayaa wuu asixi jiray. haddana rahandhigiisu wuu asaxayaa. haddii oo raqabadiisu uu ku tacalluqo xooluhu ay ku tacalluqaan deynkii ma asixi jirin beeciisu ma asixi jirin. haddana waxa weeyaan ma asaxaya rahandhigiisu
ma asaxaysa saas oo kale. amaa murtadka isaga miyaa waxaa inoo soo hormartay beeciisu inuu asaxaya laba jeeraba, yacni isaga xaddiibaa laga ofiya haddii la doone inuu asaxaya, saasa inoo soo hormartay. wa rahanulmudabbari addoonkii la dibdhigay rahankiisu. mudaber waxaa la yidhi addoonka la yidhi markaan dhinto xor baa tahay, oo isaga xornimadiisii lagu xidhay dhimashada sayidkiisa uu ku xidhay, kaasaa mudaber la yidhaah. wa rahanulmudabbari addoonkii la dibdhigay rahandhigiisu. walmucallaqi wa rahanulmucallaqi addoonkii la xidhay cidquhu xornimadiisa bisifatin sifa lagu xidhay, sifada oo yumkinu ay suurtagal tahay sabquhaa inay ka hormarto xuluula dayni deynka xaaloobidiisa. baatilun rahandhigaasi labada masalaba baatil weeye cala almadhabi qawi haddii aan qabanno. addoon mudabbara oo sayidkiisu yidhi idaa midtu fa anta xorun, haddii aan dhinto xor baa tahay, ayaa rahan la dhigay oo nin intuu deyn ka qaatay rahan uu dhigay. baatilun rahantaasi waa baatil. maxaa yeelay waxay rahantaasi ay baatil u noqonaysaa, deynku hadda deyn xaallo oo hadda joogaba ha noqdee, waa liixtimaali cidqihi kulla laxdatin, yacni ilmiriqsigii la arkaba inuu xoroobo ayaa suurtagala intuu sayidkiisu si oo kada a u dhinto. ilan xornimadiisa sayidka lagu xidhay dhimashadiisa, inuu sayidku si kada u dhinto saacaddii la arkaba inuu xoroobo ayaa suurtagala. marka kol hadday taasi suurtagal tahay, dee waxa weeye ujeeddadii rahanta iyo kalsoonidii meesha kuma jirto, marka baatil bay noqonaysa. midka oo cidqigiisa lagu xidhay sifadaasoo ay suurtagal tahay inay ka hormarto deynka xaaloobidiisa oo aan la ogeyn, inay ka hormariyo in kale aan la ogeyn ayuu lagu xidhay. matalan kasoo qaad waxaa layidhi markuu roobku do-o oo roob uu do-o ayaa maaragtay ayaan xor baa tahay baa layidhi. roobka ilaahay baa haysta subxaana watacaala mar kasta inuu soo do-o suurta kale weye taasoo kale. taana isagana addoonka noocaas oo kale ah baatil buu noqonayaa in rahan loo dhigo. wa rahanulmudabbari addoonkii la dibdhigay xornimadiisa la dibdhigay bacdalmowt loo dibdhigay layidhi idaa midtu fa anta xorun rahandhigiisu. iyo walmucallaqi addoonkii la xidhay cidquhu xorayntiisa bisifatin lagu xidhay, sifada oo yumkinu ay suurtagal tahay sabquhaa inay ka hormarto xuluula dayni deynka xaaloobidiisa. baatilun weeye rahantaasi waa baatil cala almadhabi qawi haddii aan qaban. maxaa yeelay waa lifawaati qaradi rahni, rahanta ujeedadeedii ayaa meesha ka bixi bicidqihi markuu xoroobo. xoroobidaas suurtagalnimada ah oo qabla alxuluul inay suurtagala intuuna deynku xaaloobin suurtagalka taasa maaragta ayaa baatil ka dhigta. walow rahana hadduu rahan dhigo ninkii rahanta dhigayee deynka qaatay, maa shay buu rahan dhigay, yasracu uu degdegaya fasaaduhu fasaadkiisu inuu xumaado ay degdegayso. fa in amkana hadday suurtagal tahay tajfiifuhu qallajintiisa ingejintiisa, wadaalika ka rudabin waa timirtii oo xasiida ahayde facala wuu samaynayaa. wa ilaa haddayna suurtagal ahayn, fa in rahanahu hadduu u rahan dhigay bidaynin deynka oo xaalin oo xaallo ah ow mu'ajalin mid la waqtiyeeyo waqti lagu xidhay, kaasoo yaxillu xaaloobi qabla fasaadihi inta shaygani uuna fasaadin, ow ama bacda fasaadihi buu xaaloobayahay. sharada wuxuu shardiyey beycahu shaygan in la gado, oo wajacala wuxuu ka yeelay iyo wajacla thamani thamanta yeelideeda rahnan. beycahu wajacla thamani thamanta ka yeelideeda rahnan laga dhigo haddii uu shardiyo, saxa ra-antaasi way asaxaysaa suurooyinkaasoo dhanba. tanna waa sidee, ninkiibaa wuxuu rahan dhigay shay oo si dhaqsaa u xumaanaya, sidii khudrawaadkii oo kale iyo matalan kasoo qaad khudaartii oo kale iyo maa yasrucu fasaaduhu wuxuu degdegayo xumaanshihiisu oo si dhaqsaa u xumaan kara, ayuu yidhi war rahan usii haysa. waxaa waa la eegayaa shaygaasi in la ingejiyo hadday suurtagal tahay. matalan wixii rudab buu ahaa, timir baa laga dhigi karaa. cinab buu ahaa, zabiib baa laga dhigi karaa, waa la qallajin karaa. saasoo kale hadday tahay rahantaa way asaxaysaa. facala waana la samaynayaayo waa la qallajinayaa. goormaa la qallajinayaa? markii laga baqo inuu fasaado ayaa la qallajinayaa. oo yaa qallajinayo shaqadaa qabanaya ninka maaliga ah ee raahinkay wax rahan dhigay
ayaa samaynaya kharashkan isagaa bixinaya xifdan lirahni si rahanta yacni loo ilaaliyo. hadduu diido xoolaha ayaa isaga inta xoolo laga qaado ayaa lagu qallajinaya oo qaadigaa sidaa samaynaya. haddii in xoolo laga qaada uu la waayana qaadigaa qayb ka mida intuu iibiyo ayuu ku qallajinayaa uu kharash uga bixinaya. wa ilaa haddaba shaygaa in la ingejiye haddayna suurtagal ahayn, deynkaa la eegayaa deynku ma deyn xaallo ah mise waa deyn mu-ajala. hadduu deynku xaallo yahay ama waa deyn mu-ajaloo la waqtiyeeyo waqti lehe, intuuna shaygani fasaadin ka hor buu xaaloobayaa oo waqtigiisu gaadhayaa. waa laba, ama sidaaba ma aho waqtigiisu ma gaadhaye oo markuu fasaado ka bacdi unbuu deynka waqtigiisu gaadhayaaye waxaa la shardiyey markii la rahan dhigayay shaygan in la biiciyo markuu fasaad u dhowaado lacagtiisana rahan laga dhigo. war khudaartan baan ku rahan dhigay ama rudabkan bishardi marka uu inuu xumaado aad ka baqdo inaad iibiso lacagtiisuna rahanteedna ay noqoto. saasoo kale ayaa la yidhi saxa saddexdaa masaleba way asaxaysaa rahantii, maxaa yeelay wixii laga baqayay ayaa meeshii ka baqaya. shardigana waa loo baahan yahay u dambeeyo oo waa shardi loo baahan yahay. bal haddaan ku celina walow rahana, hadduu rahan dhigo ninkii raahinka ahaa ee deynta qaatay, maa shay buu rahan u dhigay, yasracu u degdegi fasaaduhu fasaadidiisu, fa in amkana hadday suurtagal tahay tajfiifuhu in la ingejiyo, wadaalika ka rudabin, waaba timirtii xasiidda ahayde oo in timir laga dhiga ay suuroobaysa facala wuu samaynaya. wa ilaa in la ingejiyo haddayna suurtagal ahayn, fa in rahana hadduu u rahan dhigay hu shaygaa bidaynin deyn xaalin oo xaalaa ow mu-ajalin ama deyn la waqtiyeeyo waqti leh, kaasoo yaxillu xaaloobaya qabla fasaadihi intuusa fasaadin, ow sharada ama uu shardiya beycahu shaygan in la gado marka uu fasaad u dhowaado, wajacala thamana rahnan ama wajacala thamani thamantii yeelideeda rahnan rahan laga dhigo meeshiisi, rahantaasi way asaxaysaa. wa yubaacu waa la beecin. haddaba shaygaa marhuuntaa saddexdaa suuree hadda aan soo sheegnayba waa la beecinayaa. yacni xaakimka markii dacwada noocaasi ay dhacdo oo layska hor yimaado, xaakimka ayaa beecinaya cinda khawfi fasaadihi, marka fasaadkiisa laga baqo ayaa la beecinayaa xifdan lilwathiiqati, yacni wathiiqada oo rahanta ayaa la ilaalinayaa. wayakuunu wuu noqon thamanuhu lacagtiisu masalada ugu dambeysay ee la iibiyey rahnan bay noqonaysaa min gayri inshaa'i caqdin, iyadoo wax caqdiya aan la samaynin ayay rahan noqonaysaa. wa in sharada haddaba hadduu shardiyo manca beycihi beeciisa diidadiisa hadduu shardiyo, lam yasixa rahanta iyada ama asaxayso. wuxuu niyaho shaygan baan ku rahan dhigay, shayguna waa shay oo deynka waqtigiisii oon la gaadhin fasaadaya. wuxuu yihi shaygan baan ku rahan dhigay bishardi markuu inuu fasaado laga yaabo inaadan beecinin, ha fasaadee faraha ka qaad, saasaan kuu rahan dhigay buuri. kii kalena waan aqbalay buuri, badala rahankaasi waa faasid weeyaan oo lam yasixa, rahankaasi ma asaxayo. maxaa yeelay waa limunaafaati shardi, shardigaasaa wuxuu ka hor imanayaa limaqsuudi tawathuqi, shaygan oo wathiiqada ah ujeedadii laga lahaa oo dee in deynka laga bixiyo ayaa meesha ka baxaysa. waa in adlaqa hadduu iska idlaaqo waxba uunan sheegin, fasada iyadana rahankii waa fasaadaya fil adhari qawi haddii aan qaban. adlaqa macnaheed maxaa laga wadaa? shardi beecin iyo beecin la-aan midna hadduuna u banbixin oo uu yidhaahdo shaygan baan ku rahan dhigay, shaygiina waa shay oo durba fasaadaya oo deynku intuuna xaaloobin ka hor fasaadaya, shaygan baan ku rahan dhigay unbuu yidhi. wuu iska idlaaqay, yacni waxba kuma qaydin, waxba kuma xidhin inaad iibisiyo inaadan iibinin midna muuna odhanin. fasada rahanu fil adhaari, rahantii faasid bay noqonaysa. maxaa yeelay waa litacaduri istiifaa'i lxaqi, xaqii oo deynta ah in la oofsado min almarhuuni cinda almaxili, markay xaalowdo in marhuunta laga oofsado ayaan suurtagal noqonayn. maxaa yeeley waa lifasaadihi qablahu, inta ka horeysa ayuuba fasaadayaa. waalbeycu qablahu laysa min muqtadayaati alcaqd, in la beeciyana waxyaalo oo caqdiga rahanku uu keenaya ma ahe in la shardiyo, yacni ayaa la doonayay. saa darteed rahantaasi waa faasid wey. wain lam yaclam, hadduuna ogeyn
hal yafsudu inuu fasaadi shaygan marhuunta ah qabla alajali ajasha ka hor inuu fasaadi qabla alajali qabla xuluuli lajal ajasha yacni waqtiga deynka intuuna xaaloobin oon la gaadhin inuu fasaadi haddii aan la ogeyn saxa rahantii way asaxaysaa fil adhari qawi haddii aan qaban kol haddaan la ogeyn inuu fasaadiya in kale way asaxaysaa maxaa yeelay idil aslu sida asalka ah cadamu fasaadihi qabla alxuluuli wey maxaa yeelay asalka waxaa la yidhaha wixii soo socday yacni inay waxani uu fiican yahay saasaa soo socotay marka asalka shaki kama hor iman karayo shaki laguma burin karayo sida asalka kaasaa soo socday markaase waxaa la yidhi oo soo kii aynu xagga cidqiga kusoo marnay haddii ay suurtagal tahay haddii sifa lagu xidho addoonka xornimadiisa sifadaasina ay suurtagal tahay inay kasoo hormarto deynka inayna kasoo hormarinna ay suurtagal tahay markaasi soo inagii soo marnay ma aha allahuma salli calaa maxamed inuu beecaasi allahuma salli calaa maxamed sidan si ka duwan soo inagii soo marnay inuuna fasaadaynin inuu fasaadayo soo inagii soo marnay maaha inuu fasaadayo taa waxaa lagaga jawaabay shaarica oo majaazna nabi maxamed calayhi salaatu salaam xaqiiq ahaana ilaahaya ayaa wuxuu jecel yahay cidqiga oo cidqiga ayaa la jecel yahay saa darteed cidqiga xornimada ayaa la xaq siinay alxamdu lilah ilaahay markuu inaga uu ina keenay waqti adduunka addoonnimo ayna ka jirin oo bini aadamka intuu isu yimid gaal iyo muslimba la yidhi aan mamnuucno yaan lays addoonsanin la yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wax wanaagsan wey wa in rahana hadduu rahan dhigo ninkii oo raahinka ahaa ee deynta qaatay maa shay laa yasrucu uuna degdegaynin fasaaduhu fasaadkiisu oo fadara'a uu soo dariyo uu yimaado maa shay caradahu u banbixiya lilfasaadi fasaad qabla alxuluul inuu fasaado wadaalika ka xindatin qabandiba weeye ibtallad oo qoydaye lam yanfasikh ma fasakh min arrahnu rahantii bixaalin xaalana rahantii ma fasakhmin weye ninkii maaliga ahaa ee raahinka ahaa ayaa wuxuu rahan dhigay shay oo aan fasaadaynin fasaadkiisu uuna deg deg ahayn sida qaalibka ah laakiin fasaadkii ayaa iska yimid oo maa maxay waxay ahayd xinda qamandi bay ahayd way qoyday walow in la qalajiyo biyayna suurtagal yayna noqonin lam yanfasikh arrahnu rahantii fasakhmi mayso bixaalin xaalana maxaa yeelay qaacide kuliyo fiqhiyo waxaa jirta la yidhaah yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa yacni waxaa la dhaafaa ibtidaa dawaamka caqdigii isagoo socda oo daa'ima wixii yimaada wax aan bilowga la saamixiin hore ayaa la saamaxaa qaacidadaas yacni ayaa jirta see la yeelayaa markii in la qallajiyo ay suurtagal noqon weydo sidaa ay tahay ayaa lagu iibinayaa wixii kasoo baxo unbaa deedna la arkaya wayajuusu waxaa bannaan an yastaciira inuu soo ergisto qofku shay-an shay liyarhanahu inuu rahan dhiga nin kale wa huwa kaasina caariyatun caariye weeye wal adharu sida qawiga annahu isagu damaanu dayn oo la damaanay weeye fii raqabati daalika shay shaygaa isaga qoortiisa lagu damaanay oo fa yushtaradu waxaa la shardiyaa dikru jinsi dayni wa qadrihi wa sifatihi daynta jinsigeeda qadarkeeda iyo tilmaamaheeda in la sheego wakadal marhuunu cindahu qofka la rahan dhigi in la sheegana waa shardi fil asaxi qawi haddii aan qaban masale kale ayuu sheekhu inoo sheegaya waxaa bannaan qofku inuu shay soo ergisto deedna uu nin uu rahan dhigo intuu nin shay ka soo qaato inuu nin kale intuu dayn ka qaato uu rahan u dhigo way iska bannaan tahay arrintaa ijmaaca ummadda ayaa u daliila markaasaa waxaa la yidhi caqdigaas maxaa lagu magacaabi ma caqdi rahana mise waa caqdi caariya ah qowl oo daciifa muxuu leeyahay wa huwa fii qowlin caariyatun qowl wuxuu leeyahay marka oo la rahan dhiga ka bacdi inta ka horeysa layskuma haysto inta ka horeysa waa caariyo oo caariyada xukunkeedii ayaa lagu dureerinayaa laakiin markii shaygii uu soo ergistay uu nin rahan dhigo rahan dhiggaa wixii ka dambeeya muxuu noqonayaa fii qowlin haddaba qowl oo daciifa muxuu leeyahay caariyo weeyaan maxaa xukunkeeda bimacnaa ayuu weli baaqi ku yahay sidii markii horeba allahuma salli calaa maxamed maxaa yeelay liannahu qabadahu biidnihi liyantafica bihi markuu soo ergisanayay wuxuu u soo guddoomay inuu ku intifaaco marka dee caariyadana intifaaci bay ka mid tahay saa darteed
allahuma salli calaa maxamed weli waa caariyadii wakiilkaasi laakin waa daciif. sida adharkaa waxa weeye caariye caqdigaasi ma ahe caqdigan dambe waxa weeye damaanu daynin fi raqabati dalika shay, shaygaas qoortiisa oo dayn lagu damaanay wey. oo xagga waxaa inoo iman doonta allahuma salli calaa maxamed wacalaa ali maxamed qofku inuu wax damaano, inuu wax damaanad qaado oo nin dayn qaatay uu yidhaahdo war anaa daynkaa hebelow ninkaa daynta sii anaa damiin ka ahe, macnaheeduna waxa weeye hadduu dayntaa bixin waayo isagaa bixinaya. waxaa jira daamin iyo kafiil labadaasa kala jira. kafiilka waynoo iman doonaa, isagu qofka inuu keeno baa laga rabaaye dayn lagama rabo, laakiin daaminka waxaa laga rabaa daynka hadduu bixin waayo isagaa bixinaya oo maaragtay laga rabaa. marka qofka dimadiisa inuu dayn uu saaro sida uu maaragtay awood ugu leeyahay ayaa xoolihiisa qayb ka mid a cayntooda qoortoodana inuu daynkii uu ku damaano sida uu qoortiisa inuu ugu damaano ay u bannaan tahay ayaa iyadana ugu bannaan. maxaa yeeley labaduba tasarufkooda isagaa leh oo labaduba tasarufkoodu yani way u bannaan yihiin wey. labaduba tasarufkooda inuu qoortiisa ku tasarufiyo inuu xoolihiisa cayntooda ku tasarufo labaduba way u bannaan yihin. sidaa darteed damaanu daynin weeye caqdigaas fii raqabati dalika shay lagu damaanay. maxaa yeelay intifaacu wuxuu ku rumoobi uun shaygaas cayntiisa oo de meesha ay ka baxdo oo la iibiyo oo daynta loo iibiyo taa ayuu ku rumoobaya. taa iyo caariyana dee ismale oo way iska hor imanayaan. saa darteed damaan ayaa meeshii ayaa soo gelaysa wey. marka kol haddii la yidhi damaan bay noqonaysaa waa in la sheego wixii damaanka la sheegi jiro oo dhan oo daynka jinsigiisa la sheego, ma dahaba mise waa fido, qadarkiisa in la sheego inta uu yahay, sifadiisa in la sheegay hadduu dahab yahay ma saxaaxba mise waa mukasar, kii shaabada galay miyaa mise kii aan weli la shaabadaynin miyaa, saasoo kale. wakadal marhuunu cindahu qofka la rahan dhigayana isagana in la sheego, ma qof keliya ma labo qofbaa waa kuma. maxaa yeeley waxaa laga yaaba qofna inuu raalli ka yahay qofla inuuna ka ahayn. haddaad hebel rahan dhigaysa maya, haddaad hebel aada u rahan dhigaysa haa, marka waa in la sheego. maxaa yeele waa liikhtilaafi lgaradi bidalik, muraadka ayaa isku khilaafaya yani dadka cayntooda. falow talifa haddaba shaygii nooca ah hadduu dhinto fii yadi lmurtahini, murtahinka kii rahan qaatay gacantiisa hadduu ku dhinto falaa damaana wax magdhowa ma jira. labadooda kii soo ergistay markii hore iyo kan isagoo haya ay ku dhimatay ammaan ahaan u hayay. maalan dhimaashahana waxaa laga wadaa miduuna ku tacadiyin oo maalan gurigiisii oo dhan baa gubtay isagoon ku tacadiyin. saas oo kale biyo ayaa maaragtay kusoo fatahay dhulkii oo wuxuu oo dhan qaaday, saas oo kale wuxuuna isagoo ku tacadiyin baa loo jeeda. marka murtahinkii gacantiisa hadday ku dhimato falaa damaana calayhima, murtahinka hadda oo ay ku jirta gacantiisa iyo kii markii hore soo caariyeystay soo ergistay midkoodna maaragtay waxba laguma. walaa rujuuca noqosho lilmaaliki, ninkii maaliga ahaa uma sugnaanin bacda qabdilmurtahini, murtahinku intuu guddoomay kadib. shaygaa ergisada lagu soo qaatay ninkii lahaa ee milkiga u lahaa kol haddii uu guddoomo murtahinku isagoo dee markii hore idan lasoo weydiiyo oo layidhi dayntaasaan rahan u dhigayaa, kolkuu guddoomo kabacdi kama noqon karayo oo kama qaadan karayo. wa ilaa haddaan odhan lahayn wuu ka noqon karaa dee faa'iidadii rahanta ayaa meesha ayaa ka bixi lahayd. bacda qabdilmurtahini baan nidhi maxaa baxay? qabla alqabdi, intuuna weli guddoomin oo shaygii rahan aan loo dhigin wuu ka noqon karaayo wuu odhan karaa war waan ka noqday ma aqbalayo, maxaa yeele ilan weli ma laazimin. fa in xalla daynu, haddaba daynkii hadduu xaaloobo, weli masaladii baan ku jirnaaye oo wakhtigiisii la gaadho, ow kaana uu ahaa xaalan, markii horeba xaallo waxaa laga wadaa daynka aan wakhti ku xidhnayna goor kasta qofka laga dalban karayo ayaa xaala la yidhaah. ruujica waa loo noqon almaaliku, ninkii maaliga ahaa ayaa loo noqon lilbayci, shaygaa iibintiisa in la iibiyo. maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu furto oo uu isagu bixiyo xooli. wa yubaacu waa la beecin in lam yuqda haddaan la gudin addaynu daynkii, ninkii raahinka ahaa hadduuna gudin daynta qaatay, ama maaligii shayga laga soo qaaday haddii uuna gudin, ama qof kale oo ku tadawucay uuna gudin. in lam yuqda, majhuul in la cabiraa fiican oo in lam yuqda iyo-da la gudo. in lam yuqda addaynu, daynkii haddii aan la gudin qofkii doonaba ha gudee markaas ayaa la iibinayaa.
markaasaa deynta lagu bixin. kabacdi maxaa la sameyn? uma yarjicu wuu noqon almaaliku ninkii maaliga ahaa bimaa shay buu u noqon biica lagu iibiyey bihi isaga ayuu raahinkii ugu noqonaya. raahinku waa kii rahanta dhigay markii horena ergisada kusoo qaatay, kaasuu deedna wuxuu ugu noqonayaa wixii lagu iibiyey. maxaa yeele liannahu lam yuqda min addayni gayruhu, isaga keyrkii deyntii laguma gudin, marka waxa uu ku iibiyey waxa unbuu ugu noqonayaa wax ka dheeraada kama qaadanaya weeye. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.